meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada daawadayaal warka Gurmad Media qodobadaad ku daawad doontaan waxa kamid ah hay'adda NISA oo sii deysay xalay gudoomiyihii rugta ganacsiga gobolka Banaadir xilli loo xiray al-shabaabnimo hogaamiyaha Ahlus Sunna oo dalab culus hordhigay madaxda dawladda iyo khilaafka labada dhinac oo cirka isku shishareeray Umar Finish oo loo diray cabasho ka timid dad shacab ah oo dhul laga boobayo Somaliland oo dib u celisay xarig internet oo Soomaaliya loo soo waday Puntland oo qaaday tallaabo ka dhan ah hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federaalka golaha wasiirada dawladda federaalku ansixiyay heshiiska Soomaaliya iyo Norway haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxa ay tahay 26 bisha koobaad January sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA ayaa sii deysay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Jimcaale oo maalmo ka hor loo xiray tuhun al-shabaabnimo sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay xaqiijiyeen warbaahinta Axmed Jimcaale iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa la xiray Khamiistii 23 Janaayo 2020 iyadoo la tuhumayo inay ka tirsan yihiin ururka dagaalamayaasha al-shabaab si kastaba waxaa la sii daayay xalay Axmed Jimcaale iyadoo la sheegay in waxba loo haysan luguna waayo wax xiriir ah inuu la leeyahay al-shabaab sida ay ogaatay warbaahinta NISA ayaa wali haysa gudoomiyihii rugta ganacsiga gobolka Banaadir ee shalay la kala diray Axmed Cabdullaahi Xasan waxaana wararka aan helinay sheegayaan inay jiraan tilmaamo aad u weyn oo lala xiriirinayo ururka al-shabaab oo sida la sheegay magacaabistiisa ku qasbay rugta ganacsiga Soomaaliyeed magacaabista Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa waxaa Khamiistii 16 Janaayo 2020 shaaciyay idaacadda VOA oo sheegtay in kadib markii muddo 3 sano ah oo la isku mari waayay cidda noqonaysa gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir ay ugu dambeyn soo magacaabeen al-shabaab mas'uulkan hay'adda NISA ayaa bilooyinkii dambe aad u xoojisay ogaanshiyaha iyo soo xirista xubnaha ku dhex jira dawladda iyo shacabka ee la tuhumay inay xiriir la leeyihiin al-shabaab iyadoo maalmo ka hor NISA ay xirtay fanaan Abshir Gaaran Axmed oo muuqaal laga soo duubay ku qirtay inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha al-shabaab kooxda al-shabaab ayaa la rumaysan yahay inay canshuur ka qaado ganacsatada gobolka Banaadir manacada xiriirka ka dhaxeeya canshuurtaas iyo magacaabista la tuhunsan yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir dhinaca kale shalay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya ayaa kala diray rugta ganacsiga gobolka Banaadir kadib markii ciidamada NISA ay xireen gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyo ku-xigeenkiisa oo xalay la soo daayay wareegta ka soo baxday wasiirka ganacsiga injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa lagu sheegay in kadib markii magacaabidda rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Banaadir ay ka dhalatay xiisad ay wasaaraddu qaaday tallaabo ay ku kala dirayso inkastoo aan wasaaraddu si cad ah u sheegin sababta kala diritaanka iyo haddii ay jirto warka ah in magacaabidda xubnahaas ay ku lug lahayd al-shabaab haddana wasaaradda ayaa cadeysay in wixii haatan ka dambeeya ay ka wada tashan doonaan rugta ganacsiga Soomaaliyeed in la soo magacaabo rugta ganacsiga gobolka Banaadir ilaa iyo haatan hay'adaha amniga gaar ahaan hay'adda NISA wali kama hadal xaqiiqda ah in gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir ee shalay la kala diray ay soo magacaawday dagaalamayaasha al-shabaab markaana Dhuusamareeb hogaamiyaha guud ee Ahlus Sunna wal Jameeca ayaa darbaday xil sare magaalada Dhuusamareeb waxaa laga soo warinayaa in hogaamiyaha Ahlus Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax uu la yimid waji cusub wuxuuna dawladda ka codsaday in jaga sare looga magacaabo maamulka cusub ee la rabo in laga dhiso Galmudug si gacan uga geysto dhameystirka doorashada lagu dhisayo maamulka cusub waxaa la soo warinayaa in lagu gudagalay waan cusub oo u dhaxaysa maamulka Ahlus Sunna iyo dawladda federaalka xogta la helay ayaana sheegaysa in hogaamiyahan uu doonayo in laga dhigo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa qoraal u soo saaray dhawaan ku xaqiijiyay inaysan ka qaybeen doorashada lagu dhisayo Galmudug cusub kadib markii ay ku qanci waayeen habka ay dawladda u maamulayso guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka qorshaha ay la yimaadeen Ahlus Sunna waxay culays hor ku abuurtay habsami socodka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug waxaase la og yahay in wada hadallada dib uga bilaabanaya labada dhinac ay dawladdu u wakiilatay Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ah wiil u dhalay hogaamiyaha Ahlus Sunna oo qorshahan la yimid dawladda federaalka ayaana la ogeyn sida qorshahan ugu fulin doonto hogaamiyaha Ahlus Sunna waxayna tan imaanaysaa xilli
ahlu sunna ay ku guuleysan waayeen xilka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug u tartamay Shaadiq Sheekh Yuusuf Direed. xaaladda maamulka galmudug ayaa ah mid cakiran, waxaana musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha galmudug 4 ka mid ah kuwooda ugu cadcad ayaa iska diiday inay ka qayb galaan doorashada dowladda Soomaaliya ka wada dhuusamareeb kadib markii guddigii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee baarlamaanka maamulka ay u kala jameen 2 garab. dhinaca kale madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dhankiisa isna ka wada abaabul doorasho magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, wuxuuna shalay baarlamaan uu soo saaray ay doorteen gudoomiye ku meel gaar ah. Somaliland ayaa dib u celisay markab siday xarig internet oo Soomaaliya loo soo waday. xukuumadda Somaliland ee hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku guuleysatay inay dib u celiso markab jiidaya xarig internet kaasi oo laga lahaa dalka Jabuuti, isla markaana la rabay in xarigaasi internet la mariyo badda Berbera loona sii jiido Soomaaliya. dowladda Jabuuti ayaa horey u shaacisay in badda Berbera ay mari doonto xarig internet oo ka mid noqon doona 3 magaalo oo xarigaasi la marin doono. Somaliland ayaa iyaduna sheegtay in lagala soo xiriirin xarigaasi ay dowladda Jabuuti shaacisay inay marinayso badda Berbera, isla markaana uu ogolaanshiyo ka haysan xukuumadda Muuse Biixi. ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland ayaa howlgallay sameeyeen ka hortagay markabkaasi oo ay sheegeen in sifa sharci darro ah xariga ku marinayay biyaha Somaliland iyadoona loo sii wado dhanka Soomaaliya. waxaa la aaminsan yahay in tilaabada ciidamada ilaalada xeebuhu ay kaga hortageen markabkaasi isla markaana ay dib ugu celiyeen biyaha Somaliland ay daba socoto hadal uu dhawaan sheegay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Somaliland kaasi oo ku shaaciyay in Jabuuti wax ogolaanshiyo ay ugu haysan xarigaasi inay mariso Berbera. markabka xarigan jiidaya ayaa la sheegay inuu ka dhaga adeegay digniin ay ciidamada ilaaladu siiyeen, isagoona isku day inuu xoog soo galo biyaha Somaliland balse ugu dambeyntii dib u celiyeen ciidamadu. saraakiisha ciidanka ilaalada xeebaha ayaa ka warbixiyay sida howlgalkaasi u dhacay, iyagoona xusay in ilaalada saarneed markabkaasi ay rasaas fureen si xoog ugu soo gudbaan. waxayna yiraahdeen markabkaas oo ka soo dhaqaaqay dalka Jabuuti oo jiidaya xarig keebal ah wuxuu biyaheena meel ka mid ah ku soo galay si aan sharci ahayn oo aan laga wada hadal oo sharci darro ah. xukuumadda Somaliland ayaa horey u sheegtay in xarigaasi ay dowladda Jabuuti badda Berbera marinayso aysan wax ogolaanshiyo ah uga soo qaadan, isla markaana aan la ogeyn halka ay ogolaanshaha kala timid. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa loo gudbiyay cabasho ka dhan ah gudoomiyaha degmada Daynile Jacfar. goofleyda deegaanka Jabal Cade ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa soo saaray qoraal ay uga cabanayaan gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abuukar Jacfar oo ay sheegeen inuu xoog kula wareegayo dhul ay leeyihiin qoyska reer Sheekh Maxamed Mataan oo halkaasi ku yaala. warqadan cabashada ah ayaa ku socota maamulka gobolka oo looga dalbaday inay wax ka qabtaan arrintan, iyadoo laga digay in cawaaqib xumada ka dhalata arrintaas uu mas'uuliyadeeda qaadan doono gudoomiye Jacfar. sidoo kale war ka soo baxay goofleyda Jabal Cade ee degmada Daynile ayaa lagu sheegay 23 bishan weerar uu gudoomiye Jacfar ku qaaday qoyska reer Sheekh Axmed Mataan oo xubno ka tirsan qoyska dhaawacyo uu geystay, isla markaana uu burburiyay guryo ay lahaayeen dadkaasi. maalintii Khamiista oo ay taariikhdu ahayd 23 bishii koobaad sanadkan ku guda jiro 2020 wuxuu weerar ku qaaday gudoomiye Jacfar oo ka mid ah gudoomiyaasha gobolka Banaadir, wuxuuna geystay khasaare isku jira. maalintii Khamiista oo taariikhda ku beegneed 23 bishan ku guda jirno 2020 wuxuu weerar ku qaaday Jabal Cade ee degmada Daynile, wuxuuna geystay khasaare isku jira dhaawac iyo mid hantiyadeed isagoo burburiyay dhismooyin ay shacab lahaayeen. rasaas uu ku furayna dhaawac u geysatay 2 gabdhood oo quraan lagu saareeyay xaafadahooda. haddaba maamulka gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa inuu soo fargeliyo arrintan ayay yiraahdeen dadka ku nool deegaanka Jabal Cade. golaha wasiirada dowladda federaalka ayaa ansixiyay heshiiska Soomaaliya iyo Norway. golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo shir aan caadi ahayn Muqdisho ku yeeshay ayaa ansixiyay ogolaanshiyaha heshiiska ay Norway ku caawinayso diin cafinta Soomaaliya. dowladda Norway ayaa bixinaysa lacag gaaraysa 400 milyan oo ah qaanta bangiga adduunka ku leeyahay Soomaaliya. sidoo kale dowladaha Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa bixinaya diin cafinta Soomaaliya ku leeyihiin hay'adaha lacagta adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii hay'adaha maaliyadda adduunka iyo dowladaha deymaha kula Soomaaliya ay sida la sheegay ku qarceen in dib u habeynta dowladda Soomaaliya ku sameysay hay'adaha maaliyadda intii jirtay xukuumadan. hay'adda lacagta adduunka ee IMF, bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika
ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda ay ku dhawaaqaan in deynta laga cafiyay Soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya. Arrintan ayaa haddii ay suurto gasho oo deymaha laga dhaafo Soomaaliya waxaa bog cusub u furmaysa dhaqaalaha dalka Soomaaliya. daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Gurmud.